waxaa nasiib darro ah in madasha qaranka loo bixiyey ee anigu aan aaminsanahay inay constitutionally ay ahayn sax inay ku tallaabsanayso maalin walba khaladaad waaweyn oo dalkan masiirkiisa halis ku ah. waxaad ogtihiin 2012kii waxyaabaha dowladihii ku-meel gaarka ah laga dhaxlay oo ugu waaweynaa waxaa ka mid ah in ay dadkii Soomaaliyeed mar labaad magaalada Muqdisho isugu keentay in la diyaariyey dastuur oo si ku-meel gaara 825 qof ay u ansixiyeen iyadoo lala sugayo markii dib loo eego in bulshada Soomaaliyeed ay afti u qaado waxa kaliya oo hanti ah maanta Soomaaliya ay haysato intaasaa saldhig u ah. shuruucdii dalka ee saldhigga u ahaa in dadkan mar labaad ay isku aaminaan oo dib isugu soo noqdaan ayaa waxaa moodaa dib mar labaad in la rabo in loo burburiyo oo haddana aan noqono inaan square one inaan haddana mar labaad istaagno. waxaad ogtihiin bayaankii u dambeeyey ee soo saareen oo aan sharciga ahayn in ay ku tunteen qodobka 72 ee dhigayay aqalka sare inuu yahay 54. waxa ay leeyihiin marxaladan haddayba jiri karaan arrimo siyaasadeed xal way u gaari karaan habka loo qeybiyo constitutionka wax waa ka bedeli karaan iyagoo xeerinaya ummadda Soomaaliyeed wada jirkeeda laakiin inay xeer ay soo saaraan ay ku burburinayaan sharci constitution ah waxaad ogaataan qofka noocaas sameeya waa qof inqilaab sameeyey. marka dadka noocaas ay rabaan inay inqilaab sameeyaan oo dalka wareegto ku maamulaan oo ay rabaan inay iyaga danahooda ku ilaashadaan arrintaa waxaan filayaa inay tahay arrin aan sax ahayn dadka Soomaaliyeedna si sax ay u ogaadaan mowqif midaysanna ay ka qaataan. waxa ayaan darro ah dadka Soomaaliyeed dhaqamo aan wanaagsanayn bay lahaan jireen oo mararka qaarkood qoysaska Soomaaliyeed dhibaato badan u geystay kaasoo murtidiisa ay ka mid tahay inay dad badan waqtiyo ay aqoontu iyo garashadu ay yarayd ay ka dhigteen halbeeg oo qoysas Soomaaliyeed lagu dhisi jiray oo oran jiray gabadha beenna waa lagu soo xerogeliyaa runna waa lagu dhaqaa oo markii beenta lagu soo xerogeliyo oo runta timaada laba mid bay noqon jirtay ama qoysku waa burburi jiro gabadhu ma aqbali jirin ama waxay ku jiri jirtay calool xumo iyo waxaysan iyadu aysan raalli ku ahayn inay ku dhowlaato oo nolosheeda halis gelin jiray. casriga maanta ah dowladnimadii dad baa raba inay u adeegsadaan inay yidhaahdaan shacabka Soomaaliyeed beenna waa kusoo xerogelinaynaa beenna waa ku dhaqaynaa wax suuragalna maaha. waxaan aaminsanahay qofka Soomaaliyeed ee karila inuu qofka runta u sheego oo hadduu wax weydiisto waxaa ma haya dhihi kara oo hadduu wax ballan qaado aan oofin karay oo haddii uu wax weydiiyo beenta u sheegayo kartida uu rabo inuu Soomaali ku maamulo waxay u baahan tahay in dib loo fiiriyo. waxaan u baahannahay in shacabka aan laga baqin runta loo sheego xaqiiqada lagu dhaqo danahooda wixii ay maslaxo ku jirtana lagu hogaamiyo. waxaan runtii nasiib darro ah in madaxda qaybtood ay u dhaqmayaan inay dadkan ay carruur oo kale yihiin dadka inay daalinayaan. waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid a go-aan bay soo saareen madashu iyadoo 3 ka mida ay maqan yihiin macnaheedu waxay tahay intayn bixin bay kusii heshiyeen muxuu sii sheegi waayo mas-uulaasha. marka ummadatan ummad been lagu dhaqi karo waa ka weyn tahay geyiga kana cidna kan baabi'in kara mayso. waxaan inii sheegayaa talada dalka runtii dadka hadallada adag oo sida dheer u hadla ma ahaan jirin wax badan baa xeerin jiray laakiin meeshu waxa ay muuqda alamtara inay soo dhaaftay. waxay u baahan tahay waa hijacking dad raba inay dadka afduubaan saxna ma aha. ummadatan ummad la afduubo way ka weyn tahay. waxaan u baahannahay beenta la isku dhaqayo inaan go-aan ka qaadano dadkeenna waxaan u baahannahay inaan run isku dhaqno waxbaan isku dayn karnaa waxbaan ku heshin karnaa waxbaa hadday khaldabaan xataa iska cafiyi karnaa laakiin dadkan dad la siri kara maaha. dadka Soomaaliyeed waa dad homogeneous ah waa dad isleh oo walaalo ah waa dad aan sinna u kala maarmayn. nasiib darro ayay noqonaysaa inaan degaankeennii iyo dalkeenna quduxda badnaa iyo xamar ay waddada Maka Mukarrama kusoo koobnaato oo madaxdu halkaa uun ay socdaan oo ay adag tahay dadka qaybtiisa xaafadihii xataa ay kusoo barbaareen siigaal inay tegi waayaan meel kale iska dhaafaan oo dowladnimo haddana sii rabaan waa arrin aad iyo aad u fool runtii. waxaan inii sheegayaa inaan inii ballan qaadayaa
horta run baad igu baranaysaan dad badan baa waxay yidhahdaan hal u doortay runta iska daa laakiin anigu waa ku dhimanayo runta run baa idiin sheegayaa waxa u socdo waxa waaye maslaxaddiina inaan ka taliyo oo maslaxaddiina inagu hogaamiyo ee ma doonayo umana imaan dalkan dana aan leedihiin anigu inaan ku manaafacansado danahaygu waa ka imid waxaan diyaar u ahay jiilka yar ee soo korraaya maslaxaddooda inaan ka taliyo runtii waxaan halka muhiim ah waxaa muhiim ah dadka soomaaliyeed wacyigooda inay kor u qaadaan waxaa muhiim ah dalka soomaaliyeed taladeeda 329-ka hadda la leeyahay 18 baa lagu darayaa oo ay u baahan tahay in si adag looga hor yimaado waa la isu dayn karaa hadday qabaa'il cabanayaan waa loo dayn karaa maxaa yeelay qofka marka uu tago labadan asal qof soomaaliga uu noqonaya qof reer ebera noqon maayo xildhibaan baan ahaa meeshaan joogay maalinna kama hadal reerkayga waxay gaar u leeyihiin maxaa yeelay xildhibaan qaran baa golayaashana laguma hayo reeruhu waxay leeyihiin runta marka loo hadlo marka waxaan aaminsanahay reeruhu naftirkooda waa iska dhex arkeennaa iyo cudurka jira waa qadarinaynaa laakiin waxaa la rabaa runta in loo hadlo waxaan aaminsanahay tirada meesha saxda ah haddii dad ay u arkaan inay ku dulman yihiin waa in la xalliya qaybta iyo qaybsiga xal waa laga gaari karaa laakiin qodob dastuuri ah looma burburin karo waxaan anigu runtii ballan qaaday marar badan haddana inii ballan qaadayaa inaan ahaado qof sharciga iyo dastuurka iyo xeerka dadku leeyihiin mar walba ku taagan mar walba qorshaygu waxa weeye dadka soomaaliyeed midnimadooda sidii loo ilaalin lahaa wadajirkooda iyo horumarkooda sidii looga shaqayn lahaa dhibaatooyinka sida dhabtaa u taabanayana loo adres garayn lahaa ama loo aadi lahaa dadkan dowladnimadu waxay u baahan yihiin inay isku nabadgeliyaan waxay u baahan yihiin inay ku noolaadaan waxay u baahan yihiin inay mustaqbalkooda braaf ku noqdaan oo horumar ku gaaraan waxay u baahan yihiin inay qabkoodii iyo sharaftooda ee adduunku lahaayeen dib u soo noqoto waxay u baahan yihiin kaalintooda hogaamineed ee dowladnimo ee adduunka ay ku leeyihin inay roolkooda cayaaraan intaa haddaanan helin qofka la doortay macno uu noo samaynaya male muddo badan baa dad reer hebel waa la doortay hebel waa la doortay waxaan rabaa wacyigiiya dadkii maanta xambaari lahaa runta waa intiinaan dadka hadda xildhibaannimada helay anoo ka xun inay jiraan dad si sharci darro ah ee loo gacan bidixeeyey oo ayna marna noqonayn waxaan anigu ayadi doono laakiin waxaan u baahannahay inaan si saxa mar walba aan u ilaalinno midnimada iyo kala dambaynta haddii ay dhacday in dad dalkan uu doortay ay maalin walba dalalka kale soo dhawarsanayaan inay dadkooda ka rabtigareeyaan oo arrintii ariyadana waa nasiib daro maalin walba waxaad maqashaan dad baa dibadaha u baxay dowlado waa khiyaano qaran runtii dadka dastuurka sida fiican u yaqaana dowladnimada u yaqaana way adag tahay dhaqaale dal kaleeto inaad dalkaaga aad ku korrabtigaraysid oo aada masiirkooda aad dadka lagu shaqaysid waxaan si aada uga digayaa dadka soomaaliyeed inay wacyigooda furaan dadka soomaaliyeed qofka madaxda ah bulshaduu madax u yahay waxaan aaminsanahay in aad ka qayb qaadataan qofka raba inuu madax noqdo inaad financial contribution idinku siisaan intuu dad kale aadinayo haddaad u aragtaan inuu munaasab yahay haddii loo arkay inuusan markaas wax la tari karinna in dadka loola hadlo oo la yidhaahdo warbal ka cafiye waxa aad ka rabtaan ama wax ka dhima ilaa wixii gorgortan bay noqdeen ya dowladnimadii waaba isbedeshay laakiin aan waxaan aaminsanahay inay sharaf darro maalin walba tahay waxaa dadka dhaqanka soomaalida la ohan jira carruurta waxaa lagu sasabaa markii biyo la-aan dhacdo miyiga dhaankii baa soo socda si ay u seexdaan hadda madax baa intay maalin walba intay dibadda aadaan waxay dhaan lacag baan doonaya markay yimaadaan xawaaladday kusoo jirtaa dadkii waa been bay ku wareeriyeen marka an waxaan qabaa in runta la isu sheego qofku waxa jeebkiisa ku jiro oo keliya ma ahane wax walaalkiis ku jira intuu u tago uu dhihi karaa war maanta waxaan rabaa inaan dadka u shaqeeye contribution isi ceeb maaha fundraising qofku uu samayn karaa saaxiibadiis lacag uu ka soo qaadi karaa dowladnimada iyo siyaasaddu inay lacag u baahan tahay anigu ma inkirayo oo waa xaqiiqo jirta laakiin waxaan u baahannahay wax walba in limitationkeeda lagu hayo oo aan akhlaaqda dadka aan la baabi'in oo hadday iyagu ka baaba'aysa xataa madaxdu aysan baabi'in madaxdu waxay u igman tahay inay dadka horumarkiisa akhlaaqdiisa ilaaliso ee uma igmana inay dadka burburiso